dhammaan guddiga ka kooban qeybaha kala duwan wasiirada la taliyayaasha sare xafiisyada kala duwan ee dowladda iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ka kooban waxaan ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib aada iyo aad baan kaga mahad celinaynaa hawsha adag ee laydin idmaday ood ku jirtaan oo runtii guddigan uu yahay guddi muhiimad weyn u leh ummadda soomaaliyeed oo laga sugayo talo weyn oo dhaxalgal ah oo waktiga iyo xaaladda dalka uu joogo ku aadan inaad shaqeyneyseen wakti ku habboonaa aad ku howlgasheen aada baa ugu mahadsantihin. inagu maantay waxaan kasoo bilownay sida wasiirka dastuurka wasiir saalax uu ku warbixiyey haddaba uu xusay safar shaqo oo gaaban baan dibadda ugu maqnayn. waxaan kasoo bilownay socodkeega iyo salaanteeda waxaan ugu talagalnay inaanu sii salaamno idinku dhiiragelino hawshiina maadaama aan nahay anagu galmudug oo gobashii guddiga aan kasoo baxay dhigtay haddana gobashii dhuusamareebtiri ay taallo caasimadda galmudug waxaan leenahay hawshiina hore u wata. gobashii dhuusamareebtiri waa diyaar dhawaanna waxaan sugaynaa insha allah inaad timaadaan oo goobtii iyo gobashii aada timaadaan waa idinku tahanideyneynaa runtii waa idinku hambalyeyneynaa hawshiina wanaagsan inaguna waa dhaqaaqeynaa waa idinka sii horeynaa ama waa wada soconaa siday noqotaba laakiin haddana gobashii iyo hawsheedii baan gudagelaynaa maadaama waktigii la joogo oo aan wakti badan ka dhimanayn oo ay tahay maanta waxa ka dhiman 15 August 3 beri. intii hadda la xusay oo maamulada qaar ku dhimanna waxaan rajeyneynaa inay soo gaaraan yimaadaan la siiyo hawshaan guddigaani uu u fadhiyo ahmiyadda ay leedahay ay u leedahay soomaali maanta u leedahay iyo waktiga la joogo. annaga maadaama aan gogashi dhignay daanahay reer galmudug guddiga iyo howlgelidiisa waxaan u haynaa fadli gaara waan idin mahad celeynaa si gaar ah inoo taabanaysa. waxaan kugu nimid inaan idhaahno fadhigii iyo gogoshiina waa diyaar goobtii aad kusii howlgeli lahaydeenna waa idin diyaar. safarkeena runtii waa soo gaabinay safar shaqo ahaa hawshaan iyo gogoshaan darteed annagoo siinayna sida ay sax u tahay ama ay maanta ugu habboon tahay waktigay astaahisho iyo siday tahay in loo taxgeliyo. intaydan ka dhimanna waxaan leenahay walaalayaal soo gaara si hawsha ay noogu waktigeeda inoogu qabsoonto. guddigana waxaan leenahay guuleysta waana idinka horeynaa gogoshiiniina waa diyaar waan soo dhaweynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.